golaha deegaanka Gabiley ayaa maanta fadhiistay kalfadhigii 16aad ee golahaas waxaana golahaasi shir gudoominayay gudoomiyaha golaha deegaanka Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi isagoo faahfaahin ka bixiyay ujeedada kalfadhigani taariikhdu tahay 10kii bishii 2018 waxa halkan nooga furmay fadhigii 16aad ee golaha deegaanka Gabiley fadhigaasi oo laga doodi doono إن شاء الله تعالى قالوهنا ضاد يفلنقين كدب عن رجينا إن شاء الله تعالى إن لبق قضب لسكولا قاعدين دونه قضب كوكوبود أو مستر بلان لو سمين يو مجالات الجبلي أو نقوليا كيوه الرئي تاريخ الجبلي لو سميو كاسو يكون لحشري دانتو يوحلق بدلو استعمال كرنولك مجالات الجبلي قضب كلابات وحلاقة وده هذي دونا ميزانية ده 2019 وإن شاء الله تعالى مركا وربحين عن وكسر إنه قالها سيد عادي جا وميزانية دي هراء 2018 حل بانض وأيكد وضعنا الفلنقية كدبنا إن شاء الله تعالى الرجيم اللي هو عن دونا ميزانية ده 2019 مركا قال شركة سنوفر مياه أنا halkan uga mahad celinaya gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka dhamaan xildhibaanada golaha deegaanka iyo xogayaha fulinta dawladda hoose oo goobjoog ka shirkan Mukhtaar Nuux Ibrahim telefishinka caalamiga ee Ariel gobolka Gabiley